social psychology waa barashada cilmiyeed ee lagu ogaado sida ay bulshooyinku isu saameeyaan dareen ahaan, aragti ahaan iyo dabci ahaan. tixraacyadan cilmiyeedna waxay u noqonayaan baaritaan sax ah iyadoo oo la raacayo hab cilmiyeysan. bal haddaba haddaynu soo sheegnay siyaabaha bulshooyinku ay isu saameeyaan, aynu soo qaadanno qodob ka mid ah qodobadan soo xusnay. afkaarta ama aragtida. waa maxay afkaartu amaba siibay bulshu isugu saameeyaan aragti ahaan? qulqulka fikradaha aad u jeedo iyo isugoyntooda kuwaas oo horseedi kara gunaanadka xaqiiqada. inkastoo fikirku yahay qiimaha jiritaan ee dadka, haddana ilaa hadda lama hayo qeexid rasmi ah ama faham rasmi ah. fikirku waxa uu qayb ka yahay ficilada ay bini'aadamku sameeyaan iyo isdhexgalkooda. fahamka la fahmaya asalka fikradda iyo waxa ka dambeeya waxay muddo badan hadafyadooda ahaayeen waaxa badan oo cilmi ah, sida falsafadda, luqadaha, cilmi nafsiga, cilmiga neerfaha, garaadka macmalka ah, biolojiga, barashada bulshada iyo cilmiga garaadka. fikirku waxa uu aadanaha u fududeeyaa inay wax turjumaan, muujiyaan amaba soo bandhigaan adduunyada ay yaqaanaan, ama inay saadaal ka bixiyaan adduunka. dabcan sidoo kale wuxuu ka caawiyaa noolayaasha baahidooda, ujeedooyinkooda, rabitaanadooda, sidii ay u qorshayn lahaayeen amaba ay u gaadhi lahaayeen hadafyadooda. insaanku waa kuwa marka ay keligood yihiin aragtidooda u madax bannaan, balse haddii lagu hareeraysan yahay waa kuwa loo raadeeyo si aan muuqan. tusaale ahaan ka soo qaad inaad fadhido miis cunto keligaa. kadib markii aad cunnadii dhammaysatay ayaa mudarabkii kuu soo bandhigay haddii aad jeclaan lahayd inaad cunto macmacaan. way fududdahay inaad ku jawaabto haa, adigoo u dhigaya qaabkan: waan jecelahay macmacaanka, weli calooshaydu way madhan tahay, oo u dhigantaa waan doonayaa. balse haddii aad fadhido miis ay dad kula fadhiyaan oo dhammaanba hortaa la weydiiyey su'aasha oo ay ku jawaabeen maya, ma beddeli kartaa jawaabtaadii? laga yaabaa inay hadda kuu fududdahay inaad odhan lahayd maya, maan beddeleen. arrintaase waxaa caddeeyey brofesor Jonah Berger oo shahaadada PhD ka haysta jaamacadda Stanford, isla markaana brofesor dhinaca suuqiinta ka ah Wharton School ee jaamacadda Pennsylvania, oo ku caddeeyey buuggiisa la yidhaahdo Invisible Influence ama raadka aan muuqan. 1951 tijaabo la mida tacashada oo uu sameeyey Salomon Aschach waxa uu weydiiyey 4 qof oo 3 ka mid ahaayeen jilayaal su'aashan. 3 xariijimood oo uu meel ku taxay midkooda la mida xariijin kale oo ka madax bannaan. 3 oo kala ahaa A, B, C. inkastoo ay jawaabtu caddahay oo tahay B, 3dii jila ayaa waxay doorteen C, waxayna saameyn ku yeesheen kii hadhay, waana ku raaca. sidaas si la mida ayaad adiguna ku raacaysa aqlabiyadda. taa macnaheedu wuxuu yahay kollayba si uun waa lagu saamaynayaa. isku day inaad awood u yeelato inaad maskax ahaan uga falceliso marxaladaha badan ee kala duwan.